intaan ka maqnahay waan mahagane manfaci hurdaba wayska maanace hooyoy macaan mama aragtida. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله هيك وانين السلامي وولاشين ليلة لايف ستايل إيه مركلته. ما أنت حكان السعودة ما أنت يا السعودة قاري قام وضع وين نسكاج كيسها إن ما أنت وحن السعودة هذه غير من سوق منينا يا السعودة لبضة إذا أبحبا إلى السعودة هيجا إلى هيجا مقاطع إلى هيجا مهرمرية مركا نلا الصعدة فولو بنصوص سمينا ما أنت وحن ربنا هنا فولو صوص سمينا فلوكيس هذيك البندونينا مركا بلدن كنا نلا الصعدة إن شاء الله بإذن الله الكريم حوجا ونصول لغينا ما أنت ودركو معايا هي عاد ودركو معايا هي marka waa inaan xoogaa soo lugaynaa rabnaa saanan ii sheegayba aniga iyo labadayda gabdhood adduunka aan ku leehay marka ila socdo walaalahayga insha allah biidnillaahi kariim. halkaan ka taagnahay haye shukriyay maxaa dhahaysaa asxaabtayda? Assalamu alaikum. I'm Shukri. Adka kor u qaad. Ma ekam ana way arkaysaa dhib ma lahayn. Assalamu alaikum. Magacayga waa Shukri and I'm going to go shopping with my mom today. Mahoya. Haye. Ay maxaa leedahay marka biibalka Soomaalida ku daawanaysaa? Please make dua for me. Oh, masha Allah tabarakallah. Gabadhaydu waxay tiri ana inii sheegaya waxay tiri please make dua for me. marka haddii aan inii sheego inantayda dhakhtar ayay ballan la leedahay bisha 15keeda insha Allah waan la soo socodsiinayaa haltigeeda wax yar ayaa soo galay marka waxayna tiri ii soo duceeyaa aniga waxa u soo galay maanta wax kale ma aha waxaan u soo galay asxaabay inaa inigu codsado duco inantayda inaa iigu soo ducaysaan ilaahay idankii dhaqaatiirta waxay dhaheen qalliinay galaysaa xagee ka galaysaa qalliinka waaye dhabarka waaye ama isbaynka ilaahay waxaan ka baryaa inuusan wax dhiba tusin inta ay nooshahay aakhirana janno ilaahay inuu sakala dhantaalin inantayda oo ogtihiin dhabarka waa khatar xanuunkaas oo dhabarka kaga yimi ma garanayo wuxuu yahay laakiin waxay dhaheen waxa keena korriinka degdega scoliosis ma la dhahaa mochi waxaasay ku sheegayaan scoliosis marka scoliosis oo boqolkiiba waxaad ku dhacdaa 2 qof gabdhaha wuxuu ku dhacaa markay yar yihiin marka inantaydu waxay noqotay inay nasiib u yeelatay inuu ku dhaco way nasiib u yeelatay haddii qof kale uu ku dhacay xanuunkan jiro ha ila soo xiriiro oo ka fiicnaaday waxyaalaha uu sameeyay waxyaalaha helbi garaynaya inantayda oo aan u sameeyo marka walaalahayga insha Allah intaasaan inay ku codsanayaa wax kale ma inay ku codsanaayo alxamdulillaahi rabbil caalamiin maxaa ku dhacay meesha tan hooyo dad baa jooga marka waxaan leeyahay intaasaan ku codsanayaa baarkinkan aan dhiganaynaa halka baarkaas rabnaa inaan ku soconno shukriye ma soo qabsanaa timirta kuwana timirta يواني؟ اوكي تيمورتن كان عادية مركز مبارك ايماننا هدو الى هاي ادمو مركز اصحابي aniga maanta waxaan dalbanayaa duco waaye inantayda 15 abriil waxay leedahay dhakhtarkaas oo asikidis
maalintii qaliinka ma aha laakiin waa maalintii check-upka already gabadhayda laba dhakhtar baa arkay labadiba waxay dhaheen waa qaliin aniga ma diidi kari qaliinka because wixii iyada dan u ah baa anigana dan ii ah dhaqaatiirta waxay ii sheegayaan inay qaliinka uu gabadhayda dan u yahay laakiin dhaqaatiirkii weynaa oo specialist hala kulansanahay la ballansanahay isbitaalka Sikidis 14 Abriil waa Friday waa maalin khayr badan marka ii soo duceeyo walaalayaalow inaan inantayda Ilaahay wax dhiba tusin hadii la qalo Ilaahay u fududeeyo hadduu Ilaahay ka baajiyo Ilaahay ii caafiyana ii caafiyo markasta inuu Ilaahay iigu gargaaro gabadhayda iigu soo duceeyo insha Allah adduunka waxaan ka dhalay 2 gabdhood Ilaahay waxaan ka baryayaa labada gabdhood inaan Ilaahay iga hormarin anoo nool ilmahan dhalay oo dhanba iyo inta islaamkaba ilmaha inay iyagana duugaan waaye Ilaahay idanka dolla noo kasoo wayna duugayaan marka walaalayaalow aniga ducaan rabaa marka baarkaan tagaynaa wayno iyo baarka hadda waxaan dalbanaynaa Timortan marka see you later insha Allah isku soo noqonaynaa walaalahay saan ii sheegayba maanta waxaan soo baxnay vlogs iyo adeeg shukri baa ila socoto waa inii sheegay shukri xanuunkeeda waa inii sheegay in marq ma wax damo yaana sheeko badan ma haayo laakiin maxaan rabaa ducaa rabaa gabadhaydina u soo ducaysaanaan rabaa insha Allah biidmillaahi kariim hadda way socon kartaa way ordi kartaa way dheeli kartaa waxba way samayn kartaa marka hadda aniga iyada waa soconaynaa wax yar israacaynaa waxba kama dareemaysaan laakiin dabaro balaymka waa baageeda waa isbaynka waxa keenay dhererka aniga way iga dheer tahay marka na arka aan socono let's go Wait, I can't. I think I get to get sun. yeah let's go soo noqonaynaa David let's go inta ku soconaynaa waana kan aniga shukri We got a man. Allah. halkan aan waynaynaa shukri waatan We waana kan got a man. alxamdulilah meeshan iska waxa waaye waa cagaar indhaha u roon waaye marka yaa dheer aniga shukri horta xalma yaa dheer شكرا runta yaa كادر. dheer شكرا واحد بدن كادر. wallahi Actually no, Maya Hoya كادر. wallahi dheer Look Hoya كادر. عادي استاذ شكري My شكرا واحد بدن كادر. wallahi dheer ها. marka Inta aan camal gabadhayda ka dheer wataas ilaahay caafimaad ha ii siiyo qaali bay igu tahay haye shukri Please make dua for me so I get better. insha Allah way caafimaaday waa 15 Abriil jimcaha ballanteedii ka hor waxaan rajaynaynaa inay fiicnaato insha Allah sharka gaalada sharka shaydaanka in Ilaahay dhinac ka mariyo gabadhayda waxaan dhihi karaa waa qof nasiib badan waxaan dhihi karaa waa qof lucky ah because waxa Ilaahay keenay country wadan uu yahay caafimaad ku firi maanta waxa iiga naxdin badnaan lahayd ama iiga murug badnaan lahayd iyadoo joogta wadan kale oo uu caafimaad ku yahay lacag oo lacag aan dhakhtar ku geeyo aan u haynin laakiin maanta ma ka walwalaaya maxaa dhakhtar ku geysaa maxaa lacagta ku bixinay jas waxaan leeyahay ilaahay oo hadday qalliin noqoto kuwa qalaya gacantooda caafimaadka ugu dar ilaahay waxaan ka baryayaa inaysan wax dhiba arkin ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay caafimaad sareeca siiyo bil Ramadaan baa soo galaysa bilis waa in baryayaa u soo duceeyo gabadhayda Amiin. qof walba meel kastuu joogo lacag ma inay ka rabo wax kale ma inay ka rabo waxaan inay ka rabaa faatixooyinka bisina ay soo martaan ilaahay shukri inuu caafimaad siiyo waa inay soo sheegayaa insha Allah jimcaha wixii ka dameeya dhakhtarka markii jimcaha aan ka soo baxo wuxuu i soo dhaho maalintii u horeysay oo la ii sheegay waa walwalay waa murugooday laakiin wax walba kugu dhacay kun sano ka weyihiin waa ina ogaataa
dhakhtarka wuxuu ii sheegay riski badan oo haddii qaliin aan lagu samayn organkeeda ku iman kara saas ayaa u yeelay aan iri dhakhtarka adiga ayaa garanaya wixii gabadhayda dan u ah adiga ayaa dhakhtar ah marka walaalahayga waxaan in leeyahay hadalkaynu ku badin maayo waxaan rabaa duco laaseed wax kale ma rabo alxamdulillaah waxaan leeyahay ilaahay Canada ha xifdiyo Soomaaliya ha xifdiyo Canada waa meel fiican goos waxyaalaha ku fiican tahay waxa kamid ah inay gabadhayda maanta ay haysato dhakhtar free ah inayna ka walwalayn lacagtii dhakhtarkeeda because dhabarka waa meel khatar ah waa meesha dareenka bini'aadanka baadhigeena kala xukunta wax yar haday si noqdaan qofku wuxuu noqon karaa wax walba qaliinka gabadhaydu galayso haday noqoto qaliin waa 10 saac waaye wax yar ma aha wax iisina ma aha laakiin wax walba waynaan dhahnaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin waan inay jeclahay waa walaashin Layla lifestyle iyo mar kale waxaan rabnaa ducaan rabnaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh